waftigan ballaaran ee uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si diiran oo mugaya miisaan leh loogu soo dhaweeyay duleedka gobolka Awdal garahana kambalka laga galay magaalada Boorama kadib markii madaxweynuhu hawlo shaqo u yimi gobolka Awdal waxaana soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaahin madaxda heer gobol iyo degmo ee gobolka Awdal salaadiin cuqaal waxgarad siyaasiyiin iyo dadweyne kale markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo gaaray gudaha magaalada Boorama waxa uu ka qayb galay munaasabad weyn oo loo sameeyay dufcadii 18aad ee ka aflaxda kana qalin jabisa kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Camuud kuwaasi oo dhammaan 974 arday xafladaasi oo ahayd mid si fiican loo soo agaasimay waxaa madaxweynaha Soomaaliland kala qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaahin madaxda heer gobol iyo degmo ee gobolka Awdal waalidiinta ay ubadkoodu ka qalin jabiyeen jaamacadda Camuud iyo waliba marti sharaf kale oo tiro badan oo lagu casumay xafladaasi waxa ugu horeyn ka hadlay kana waramay waayihii jaamacadda gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guuled waxa uu ka waayay waramay taariikhda jaamacadda Camuud waxyaabaha uu qabsoomay iyo ardayda qalin jabisay mudane madaxweyne waxaan adiga iyo wafdiga iyo madaxweynihii hore iyo intiinaba idinku soo dhaweynaynaa iskuulkaagii hore ka baxday iyo qalin jabintii 18aad ee jaamacadda Camuud waxay jaamacadda Camuud saaka si sharci ah idinku dhawaaqaysaa ina haysataan shahaadooyinka laydin marfuray ee laydin soo gudbiyay waajibaadka shahaadooyinkaas ummadda idinku leh madaxweynuhu wakiilka yahay waxaan isku dardaaraynaa maanta naga tegaysaan awaamirta Ilaahay fuliya wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland mudane Cismaan Jaamac Aadan oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddu ay soo dhaweynayso isla markaana ay barbar taagan tahay jaamacadaha iyo dowsiyada dawladda hambalyo idinka iyo waalidiintii idinla soo tacabtay iyo macallimiintiina intiinaba waan hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo iskuulada gaarkii afartii sane ugu dambeeyay muranka ka dhex taagnaa iyagii wasaaraddu wuxuu ahaa sharciga u hoggaansama oo raaca manhajka waxbarashada ee dawladda isdiiwaangeliya cashuurta laydinku leeyahay inay iska bixiya way diideen wayna iska soo taageen waxaa kale oo munaasabadaasi ka hadlay waalidiin arday iyo mas'uuliyiin kala duwan mudane Daahir Rayaale Kaahin madaxweynihii hore ee Soomaaliland oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu ardayda xasuusiyay inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee fura jaamacadda Camuud waxaana uu hambaliyay halka ay maanta marayso iyo ardayda qalin jabisay waxaan ahaa anoo madaxweyne ku xigeenna ninkii ugu horeeyay furay baan ahaa 3 October 1998 Suleymaan iyo maalinta ay yimaadeen waxay yiraahdeen 9 arday ayaan ku haynaa oo tijaabo oo ku furaynaa 9 baahid maantana kun baan qalin jabinay waa mahad Ilaahay dadaalkii maalinta ay bilaabeen maalinta waxaan kula dardaarmay jaamacadda aad bilowdeen yeena dhexda istaagin ha socoto waxaan ku hambalyeeynaa inay horumar badan la sameeyay horeyna jaamacaddan ay u socotay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo la hadlay ardayda qalinka qoratay isla markaana ka aflaxay jaamacadda Camuud ayaa ku hoga tusaalayay in aqoonta ay barteen ay ku dabaqaan hawlaha shaqo ee qaranku uga baahan yahay hambalyo qaranku wuu sugaya odaashana sana wuu sugaya dadaalkiina waa ku mahadsantiin idinka waalkiiba waxaan ka rabnaa dhammaantiinba wala walba hawsheeda inay research ka samayso seemishkada loo xaliyay dhakhtarada inay caafimaadka research ka sameeyaan injineerada guryaha maxay doonayaan laga sameeyo qola aan ku farxado maanta magaceeda aan maqlaan soo dhawoonayo oo isku sii baahnaay siyaasadda iyo horumarkana waxaan ka doonayaa in attitude dadka in loo bedelaa waa dhibaatooyinka dagaaladii hore laga soo gaaray
markaa aqoonyahanka waxa leh ha u kaceen sidee maskaxda dadkan loogu soo celiyaa waxaa qabsay isku qaadashay inay wax wada lahaadaan oo u yareynaa kharashka laga baxayo gurmadka iyo beeraha iyo dhibaatada taada iyo dhibashada maalmo taagan ee aabiraan micnaha ee bariya galbeed bare taas aynu u baahnay haddaynu sababkii soconno dee waxaynu wuxuu ku soconayaa gurmad iyo qaba iyo gurmad soconayso maanta intaas ayaga tusaale haddaad tidhahdeen waa gurmanayna waa idin soo dhaweynaya mudane muuse bihi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa madaxweynihii hore ee somalilan mudane daahir riyaale kaahin waxa uu ku ammaanay dulqaadkii iyo go'aamadii uu qaatay wakhtigii uu dalkan hogaaminayay dhammaanteen isna maanta waxaa mahadnaq fagaarahan inaan uga mahadnaqno oo weliba anigoo madaxweynaha qaranka aanu mahadnaqay inoo taagan mudane madaxweynihii hore daahir riyaale kaahin waxay taasina tusaysaa imaankiisa iyo ereyga aan odhan doonaa dalku inuu nabad yahay maskaxiyan iyo siyaasiyan in la murmo oo arrin isku qabtaan qoysku ay isku qabto macalkii ardaydu isku qabtaan dadka dalka siyaasadda hogaamiyana ay isdhaliilayaan ee aanay jirin cayb iyo kala tag Soomaaliland iyo odayaashiisa daahiriya kale wuxuu ku sutay ardayshii 9 sanadood oo mucarabada oo ku madaxweynaha dhabaradiisa waa ku mahadsan wuxuu ku mahadsan yahay waa madaxweynihii laga helay ee raggii xisbigiisa la joogay ay BBC ka sii daayaan aqbalin baynu ee intuu soo baxay waan aqbalay ee kaga tagay waa taariikhdu kaliya ma tahay waa taariikhdu walba u taalayo taayeen waa taariikh u leeyahay oo xusuusdooda taariikhda galaysa aynu kuna amaanayno kuna xusuusanayno gabagabadii munaasabadaasi ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu shahaadooyinka guddoonsiiyay ardaydii ugu sareysay ardayda sanadkan ka baxday kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Camuud Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorama